17 bishii 8 February dowladii dhalatay fikir waxay la imaadeen yiraahdo fudfudeyd qaraska tuur la dagaalanka dimuqraadiyadda bilowga ahayd iyo ku fikridii in lagu fikiro كويلا تكيسر وحي ومدة صومال أي قوصدين إن دب لوجو عليه ما هذي كرتيد إيو حواي شاكر كان إيو قارن دومس إيو شاكر دي بعتنس دور سنة كر لوسو قد بي أي حد مقالة مقدشة تالي عاصمة تال أو في الصومالية تال أرنتس أيضا أمريكا وأسايمنت نويال محل سبعين أمريكا تال هو قادنا ما حبت كل هذه الناس أنا لا دقالينا مدحتويد إيو ودويك عيدا مثل لا دقالينا مايا قفك موادنك حق ليه أو دستوري أو شرعي أو هذا كل أنت حق تاعي إن حرية ديس أو كسفر كرو دقائق قيسة هي هذا الكيسة حق بأولاده دولة هذا جرته وعلى الدورتي كوي كنت كقف أو حلبانك دورتي شعبك عيال لقى صوح علي كوي كنت كقف نوحي دورتين حلبان قرني دورتين حلبان كانوا وحود دورتي قدام بارلمان wuxuu kala doorta madaxweynuhu doorto madaxweynihii lagu doortay maanta ma laga aqbalaa inuu yiraahdo xawaayeen dadka la wareysmaa shacabka warkooda kuma jiro laga yeelaa waxa meesha intaas leeyahay wax kale ma yaalin waxaan rabnaa marka 4 sano maan dheydii dawladdan leedahay 10 bil aan oo dhiman 10 bil markii la gaar maxaa sameeynaa marka ma dayna hadii qalad kale sii galayso waxaan rabaa inaan ta soo baxno wadooyinka istaagno fadhiisano dhahno waxa wadiin ma aqbalina صفة شرعية واي دستور كوتا الله سيدة تورات سجالة تورات دستور كفير ودستوري حق أولاده وواحد كوجوجا فرماجة خير كوجوجا واي كم جوجا قرع عارض كم جوجا حقنا كم جوجا كم رجوع كران وعارنا مرك هوكي هي أود إن أبدل رمنا واحد هذا ديمقراطية أو عن قول كان عن كتوسين الدولة أو أنا صح ما عن جوجي أنا haddii wada qaldan ku socdaan annaga waxa xaq u leenahay inaan dhaano iridda ka tar madaxtooyada dhan madaxtooyo raali noqo inta ka badan xaq u malid xuduud waa dhaaftay jooji ila yiraahdo xaq baa u leenahay xisbiga waxa weeye inteenan uu isku timid oo mabaadi' mida ku heshiisay hogaamiyaha xisbiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku qeexay xisbi inuu yahay beel siyaasadeed oo aragti siyaasadeed ku heshiisay kana wada shaqeynaysa si isku mid ah oo aan la dhahin caasha mudan iyo cali mudan soo cagratan marka xisbiga taas baa ka aaminsanahay inaan markasta is xasuusinanay aad bay muhiim u tahay waxyaabaha kulli seminaarka ku qaadan doonaa noo soo socda inaan kala fahanno ay u baahan tahay waxaana la rabaa anaga shaqooyinka aan qabanayno waxa kooka ah in aan anaga ku dagaalanno dimuqraadiyadda si nabadgelyo ah anagoo xisbiga u mareen soo cagratan taas oo ugu muhiimsan xoolaha kale oo aan qabanayno waxay tahay in la sameeyo dadka lagu sameeyo brainwash waxyaalaha maskaxdooda ka guuxaya ee qaldan ama dawladda laga aaminsiinay in meesha ay ka baxaan waxa waaye sida wada ognahay 22 sano dawlad kaligeed taris ayaa dalka ka talinaysay waxyaabaha dadka waayeelka anaga aabayaasheen ama dadka xilligaas ku soo dhaqmay ee ka aaminsan inta badan waxa waaye mar hadii dawladda timaado in ayada ay awood leedahay laakiin way ka duwantay markasta markii oo dastuurka ku noqotid awoodda waxa iska leh shacabka waxa jira marka dal iyo dad ay dawladdu leedahay iyo dad dawladda iyo dalka ayaga iska leh bal farqigu u dhaxeeyo fiiriye annaga marka waxaan noqonaynaa mustaqbalkeena dal iyo dad dawladdu leedahay ee si rabtay ay ka samaysanayso waxaan noqonaynaa dad dawladdana ayaga iska leh ee ka timid oo si dimuqraadiyada ay uga dhex timid oo la xisaabtami kara iyo dalkoodii ayaga ay leeyihiin oo dhihi karaan dalkeena waxaan ay u baahan yahay horumar hal la qabto dawladdu kula xisaabtami kara dad sidaas u nool oo qaabkaas u turjumaya inaan noqono iyo in aan noqono dad la leeyahay oo u arka dawladnimada in jidka laga xiro in la caburiyo in xuquuqda asaasiga lagu tunto sida dad badan u yaqaanaan madaxweyne farmaajo sidaas lagu doortay isla habeenkii waxa la dajiyay tabeelle ay ku qoran tahay
oto febraayo oo ah maalinta shacabka. horta madaxweynaha iyo kooxdiisa habeenkaasay beenta bilaaway. doorashadii lasoo doortay xildhibaan waxaa soo doortay baarlamaanka federaalka Soomaaliya, shacab sooma dooranin. tabeelaha laamiyadu lagu dhajiyana wuxuu ahaa maalinta shacabka oto febraayo. soo agrataba marka waxay noqotay doorashadii kadib in uu ifafaaliyo u muuqdo in la abuuro waxyaabaan hadda aaladda la dhicin oo ah jidadka xiran iyo kala wareeg iyo caburinta iyo xoog wadaniyiin iyo hebel wadani maahan iyo hebel hadduu hadlo waa qaran dumis iyo ciidankan ciidan qaran maahan waa ciidan beeleed iyo afmishaar iyo waxyaabo kale oo badan oo runtii laga soo dhaxlay dowladdii horeysay ayay bahasha u muuqataa in ay hadda faraha ay la sii gelayso. marka annaga ayaa nagala rabaa, dhalinyarada laga rabaa inay fahmaan waqtina siiyaan sidii loo badbaadin lahaa jiritaanka Soomaaliyeed iyo Soomaali waxay ku heshiisay oo ah federaal, runtiina la baahiyey iyo qaabka hadda uu yahay iyo godku iyo meesha dheer uu ku dhacay in laga soo celiyo. qolada hadda joogtana runta loo sheego oo la yiraahdo qaabkan ma ahan dastuurka qaabkan uu qabaa, dalka saana lagu soo dhaqi jiray, xaaladda wadar ogol ayay ahaa jirtay, Soomaaliya waxay isla ogoshaha ayaa lagu dhaqaaqi jiray. anigaa dhahay iyo fursada u baahanahay iyo hebelow waa ahay iyo intii ka soo baxday adeer kalaam faaruq waa naga istaag inaan dhahna annaga naga rabo. marka waxaa u baahannahay inaan waqti dheeraada arrintaas aan gelino, aanan u istaagno badbaadada dastuurka. waxaa idiin sheegayaa intii aragtana way soo aragtay, intaa arkana way arki doontaa. maxamed cabdullaahi farmaajo dastuurka ku-meelgaarka ee noo qoran hadduu asiga xataa favor u sameynayo ama asiga ee dar ugu jirto waxa dastuurka ku qoran ma ku dhaqmaayo. taas iska ilo waa lagula soo daalay, kuma dhaqmaayo, dastuurna ma yaqaano. hadduu dastuur yaqaano ma dhihi lahayn doorashadii asiga lagu soo doorto doorasho ma ahayn, sharci ma ahayn. soo agratama waa ku faraxsanahay inaa xisbi u taagannahay, wax fiican waaye, fikir fiicanaan ku taagannahay, lagu dhiman karo, lagu halgami karo, wax lagu qaban karo. example hadda dalkan meel wax loo marsiiyo lala-ya, dowladdan meel haddaad wax u baahata meela u marsiisa male fariin. xisbi hadduu jiri lahaa adiga xisbigaaga ayaad u marsiinaysaa bes, waraaqaad soo qoray, guddoomiyaha xisbigaa qaadaya, madaxweyne oo ogeya, almost waxaaga dhan madaxtooyada yaalin, aragtidaada iyo fikirkaaga ee taladaada. haddii lagaa diidana laamigaa imaanaysaa mudaharaad ku cabiray. ma fahan sidaa darteed xisbi wax la heli kara maaha. waa wax fiicanaa ka shaqeynaynaa, dalkaa u gargaaroweynaa, diintaa u gargaaraynaa, naftaynaa u gargaaraynaa. aada iyo aad aad u mahadsantihiin. waxaa la iska rabaa SYL cirka kama soo daadan, dhagaxyo lasoo ridana ma ahayn, nabi lasoo dirana maaha. SYL dhalinyaray ahayd, waxayna ka kacda duruuf jirta, xilligaasi ayay ka istaagtay. wax noo dhiman miyaa jira? haddii aada maanta xorriyad aadan ku mari karin magaaladii aada ku dhalatay, haddii aadan meeshaa rabta aadan ka soo cuntay karin, haddii meeshaa rabta aadan u sheekategi karin, haddii gabadhisha fooshaahad si nabad aysan ku gaari karin isbitaalkii, haddii cunuga ardayga ahi jaamacadda inta si nabada ku taga si nabad uga imaan karin, haddii maaragtay ganacsiga uu naga xirmay oo laga guurayo hayaan laga yahay magaaladii, masoo duruuf maahan tii lamid ah. gaal keliya inuu ku gumaysta macnuhu maaha, cid kastaa ku gumaysan karta, midkuu jir-igaa ku gumaysan karo. soo ma arag marka arrinkaasi hadduu sidaas ou yahay, cidda la rabo marka inay u istaagto waa dhalinyarada. hadda SYL labaad hadday la helin saanle lagu jiraa. haddii shalay yuusuf uu ku jiray ee hebel kale uu ku jiray oo aan xalaal caleeg iska lahaynay, adiguna haddaad xalaal caleeg iska tidhaahdo, kaad dhashana xalaal caleeg uu leeyahy, kow sii dhalana xalaal caleeg uu leeyahy, xalaal caleeg le lagu dhammaahaya. arrinaa nolosha waa ka dhacsana, runtii ma rabno, nolosha waa ka dhacsanna, waa iska muuqanaa, ilaah una nool, waa iska sheeganaynaa sida adduunku nool imaan ku noolna. waa aragteen waxaan haysto duruuf aan ku nool nahay, xuduudayna maanta kama warhayno, ma ilaashano,
ciidan shisheeyaa noo ilaalina lacag nagu qaato korya baryaa leesha dul gooshaya dekedayna waa aragteen gacanta ummad kale ku haysataa garoonkayna gacanta ummad kale ku hayso badayna ummad kale ayaa waad arkaysa wax ka dhaco waayo gudihii waxa ka dhacay waad arkaysiin ma nololaa la haystaa nolol ma haysano xorriyad kuma soconno kulligeen waxaa lagu wada jiraa maanta miyaa dhimana mase berito kii baxaba marka calaa kulli xaal waxaan daba joogaa wiilka injineerka warkiis oo ahaa SYL inaan waayo